Arday ayaa waxay ku kaceen diiwaangelin ay ka sameeyeen mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka Sacuudi Arabiya. Ileen waxbarashada ayaa halkaasi aad u fududay. Waxa ayna degeen guri u dhow jaamacaddooda. Maalin maalmaha ka mid ah ardaydii wareegaya tuuladana ku warwareegaya waxa uu isha ku dhuftay haweeney adhigeedii la joogta subaxii raacaysa si ay galabtii u soo celiso. Waa uu u naxay haweeneydan, waxaana uu weydiiyey dadkii tuulada aaway ubadkeedii iyo ehelkeedii. Waxay ugu jawaabeen inaanay cidna adduunkan ku lahayn gabadhani. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu u soo dhowaaday waana uu salaamay. Markii ay salaantii ka qaadayna waxa uu weydiiyey xaaladdeeda adduunyada iyo waxa ay adduunka ka rabto. Waxa aan doonayaa bay ugu jawaabtay inaan xaramka tago oo aan tago masaajidka nebiga oo ilaahayna uu igu irsaaqo cimro iyo xaj. Laakiin anigu arrintaas ma awoodo sababtoo ah ma haysto qof maxram ah oo soo xajisiinaya. Waxa uu aaday ninkii dhalinyarada ahaa qolkii uu deganaa. Halkaasi ayuu ka fakarayay si uu ugu rumayn lahaa cajuusadda ama qoftan waayeelka ah riyadeeda. Waxaana uu isu sheegay markiiba fariin aabihii uu ka dhaxlay oo ahayd gud baahiyaha dadka kana tag hana ka sugin inay ku mahadnaqaan. Khayrku waa uu ku soo laabanayaa meel cidina kaama celin mayso. Habeenkii ayuu wuxuu isugu sheekeeyey inuu guursado haweeneyda si ay u soo xajido una soo cimraysato sidaana ay ugu guulaysato aragtiinkeedii. Marka ay soo laabatana uu furayo. Subaxii ayuu sheekh ayuu weydiiyey waxaana uu ku yidhi ka warran arrintaas aan sameeyey. Wuxuu ku yidhi sheekhii sidii lagaa rabay ayaad yeeshay. Waxa uu sheekhii ku yidhi u tago soo weydii hadday ku yeesho waad guursan kartaa. Gabadhi waa ay aqbashay ninkii guurkiina waa u dhacay. Maka iyo Madiinaba waa uu geeyey waxaana uu uga tegay cibaadadeeda ilaa nafteedii ay degtay. Markii uu shaqadii gutay ayuu u sheegay in hawshii ay soo dhammaatay haddana uu doonayo inuu furo. Waxa ay ugu jawaabtay aan dimadaada kugu jiro meesha doontana aad. Markii waxbarashadii dhammaatay uu damcay inuu magaaladiisii aado ayuu u sheegay inuusan soo laabanayn markan uuna doonayo inuu markan furo. Waxayna ugu jawaabtay ha samaynin iska tag adigu cidina kuma haysato. Magaaladiisii ayuu aaday haweeneydiina ma uusan soo furin mana uusan soo laaban. Maalin isaga oo dhalinyaro la jooga oo magaaladiisii jooga muddana laga joogo oo ay weydiinayaan kuna dheeldheelayaan ayaa uu u sheegay inaanu waxba ka garanayn arrinteedii. Waxaana uu markaa isugu sheekeeyey inuu soo booqdo. Markii uu degmadii yimina waa uu weydiiyey dadkii ayaana u sheegay inay haweeneyda cajuusadda ahayd dhimatay wiilkii oo uu ka murugooday geerideeda. Dadkii tuuladuna waxay u sheegeen inay la yaaban yihiin sababta uga murugoonayo. Waxayna yidhaahdeen haddaad doonayso dhaxalkii aad ku lahayd gabadha gurigeedii aad si aad u soo hesho alaabteedii duugga ahayd wixii ka hadhay. Markii uu meeshii tegey waxa uu helay shandad yar oo maryaheedii ay ku jiraan. Isaga oo baadhbaadhaya ayuu warqad ka helay. Waa uu furay si uu u akhriyo. Waxaana uu la yaabay markuu ogaaday inay tahay warqad sabar looga dhul ah oo ay ka heshay in adeerkeed. Dhulkaasina uu ku yaalo xeebta Jidda. Waxaana uu qaatay sabar loogadii isagoo iska dhigaya inuu yahay qofka qura ee dhaxlaya haweeneydan. Dhulkii ayuuna la tegay si uu u iibiyo. Hanti aan caadi ahayn ayuu halkaasi ninkaas ka helay. Dhulkii ayuu wuxuu ku gaday 3 milyan oo dollar si uu u soo laabto isaga oo faan ah kuna faanaya wixii wanaagsanaa uu sameeyey haweeneydii miskiinta ahayd iyo midhihii uu ka dhaxlay. Isagoo markaa ku celcelinaya aabbo wacan baad sheegi jirtay markaad lahayd danta guud khayrku wuu kuu imanayaa.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.